السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo noqod kale oo wanaagsan oo wacan maasha Allah tabaaraka kulligiin waxaa idin leeyahay aad iyo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin yaa daawashadiina qiimaha leh maasha Allah. Markastana ma arkino asxaabteyda hore idinka waa idin salaame, kuwa cusub waa idin salaame, kuwa igu soo biiri doona idinkana salaan sare maasha Allah tabaaraka. Jalalka kor ha loo qaado ahana ma arkino la soo dhaweeyo yaa ay dheeri la soo raaco maasha Allah tabaaraka. Subscribe kana bashkala dhaca lagu siiyo saa u jeedin waa mar badan idin sheegay fiidiyoyaashan waa already hagaajiyay ma arkino cod inaa saaro baa u dhineed inaa soo sii daayo baa u dhineed. Cimrada ayaan soo aaday kadib markaan ka imaaday waa bijiraday ilaa dajuun dhexdeedii aan fiyoobaday maasha Allah tabaaraka. Waxaa waaye one of my dream ayaa ii hirgashay maasha Allah tabaaraka. Ilaahay ayaa ii kasay oo igu casuumay beedkiisii Maka aan Madiina maasha Allah. Madiina ayaan imaaday safar transit leh kadib waxaa imaaday Madiino al Munawwara maasha Allah. Habeenkaas taksigeena soo qaadanay maasha Allah saa u soo soconay fiidiyoyaasha waa isku keenay because intii aan joogay maxaa la dhahay Madiina waxaan ka dhigay hal maalin aan isugu geeyay kan Makana waxaan rabaa inaan hal fiidiyo ka dhigo because markaas aan joogay ee ku fiicneed inaan mar walba soo I don't know waa cibaadeysanayay ma rabin inaan YouTube part 1 part 2 second day inaan soo dhigo. Waxaan go'aansaday inaan duubo kadibna markaan gurigeyga ku noqdo aan ma arkin oo soo sii daayo maxaa yeelay waa qeyraysnaa aad ayaan jawi kale u galay maasha Allah tabaaraka. Inaan adduunyo joogo waan garan waayay inaan jannadii joogo aan kan kale ka sii waayay marka waan cibaadeysanay qof walbana Snapchat-kaas waa iska duuduubayay laakiin video iyo inaan ma arkin xataa TikTok waa soo dhigay laakiin YouTube-ka shaqo kale ayuu u baahan yahay isku keenkeen editing adduunyo badan waxaas dhan u baahan yahay ma fahamtay. soo marka oo diyaaris loo ah fiidiyoyisa oo diyaarinay le soo Maka waa aadi doona laakiin hadda Madiina imaaday masjidun nabawiya ayaan imaaday meeshii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ku duugnaa ayaa imaaday lagama sheekeyn karo. I think inaan ma arkino qayb kalena idiin soo sii dayn doono maxaa yeelay kan waa maalinta imaaday kow iyo qaar kale isku dardaray laakiin waxaa jiro qaabab kale oo ayadana qabriga maalintaan soo booqanayo roodada aan tegay maasha Allah. Hotelkii cuntadiisii wixiisa dhan ma soo duuduubin laakiin waxaan soo duubay qolka iyo meesha aan galnay iyo waxaas iyo laakiin quraac oo lahaa maasha Allah. And also close meel ah oo markaan hotelka ka soo baxo masaajidkaaba joogay aniga ma warwareegin lug dheerna ma gelinin maasha Allah. waa ku soo raaxaysanay Allahumma barik maxaa la dhahay meeshaan waxaa waaye meel restaurant yaal iyo cunto iyo waxaas ku yaal jardiinooyin la fariista leh kaale iska arag ani marka ma fariisan laakiin gaajo le u tagay meeshaas cunto le ka soo cunay maasha Allah. inaa wax soo cuno oo ka soo noqdo le ahayd quraacdana hotelka wata maasha Allah. aniga waxaa imaaday markii cimrada Ramadaankii laga noqday ayaan imaaday cidlo ahayd markaas ayaana marka fiican maba jirtaa u maleynaa ma buuq badnayn maxaa la dhahay inkastoo dad joogeen oo dad la waynaynin haddana to compare ma fahantay markii oo Ramadaankii ahayd way ka buuq yareed maasha Allah. wallaahi aniga jawi kalaan galay waxaan ku leeyahay kaba la'aan waxaan ku leeyahay mar qur'aan akhriso marsha salaad kasta aan ku leeyahay masaajidka Allahu akbar Allah waa taaganahay dhug Allahu akbar dhug salaad subax dhug ilaa iyo cisho dhug lagama sheekeyn karo wallaahi. aakhiro inaad joogtid oo ma arkino in lagu dambi dhaafayaaba dareemaysaaba waxaa dareemaysaaba inaa ma arkino jawi qabow oo ilaahayba ma arkino culeyskaa kor qaaday
adoo u jeedaa wax lagaa lifti ab wiif waxbaa kaa duulaya janno adduun maasha allah tabaaraka ma ilaawankay ku qoran tahan ku dhaya xasuus ana ilaa hadda qalbigayga markii madiinuu jiraa qolofteeda UK iska joogto wallaahi lacadiin been idinma sheegay maanta haddaan awood u leeyahay maanta markii madiino mid baan degi lahaa meeshaas oon shanta waqti ku tukanayo oo ilmahayga dareersanaya awooddaas daahin lahaa maanta walaa meeshaas iska oo maaragtay lasoo biiro oo nimanka qabaan أشهد أن لا إله إلا الله weliba ani madiinaan degi lahaa labadaas meel ani madiinaan degi lahaa madiina maasha allah ma ilaawaankay ku qoran tahay madiina qabowga maxaan ku leeyahay nolosha maasha allah lagama sheekeyn karo meel kasta anisaanaa u marooyaa waxaan ku leeyahay waa yaaban yihiin dadkii dhan gabadhaana u imaaday habeenka marka cashaa soo tukano waa iska soo wareegeynay jalaatadiina cuna wixiina soo qaata kaale iska arag gabadhaaniiti waa famous fiyoorahaasay madaxa dadka u gelinaya ice creamna lagu siinaa kadibna ubaxaasaa lagugu daadaadinaa hobala laba meelaa ani weliba kasoo sameeyey meelna waxaan kasoo sameeyey buurta uxud markaan tegay ayaan kasoo meeshaas gabar kaloo ku leh baan kusoo arkay somehow xataa maka waa ku arkayay waxay iska noqotay maarkino waxa oo iska vibe waxa oo adigoo hobby ah dadka ka farxad gelinayo oo kaale iska arag waayo marka waa iska just qurxis ma fahantay soo marka waxaa kaloo la sadaqaystaa kuraasta oo dadku ku fariistaan waxaa la sadaqaystaa wheelchairka ka faa'iideysta waxaa sadaqaysatiin kitaabada ilmaha baahida gaarka dadka haysto salaada duhur iyo salaada subax dhexdooda barqada masaajidka imaan jiray quraana iska akhrisan jiray maasha allah tabaaraka masaajidka intaasoo geed u leeyahay intaasoo qayb oo laga soo galo leeyahay midda kale masaajida badanaan tegay maxay ahayd toolay masaajida badan oo asxaab rasuulullah loogu magac daray calayhi salaatu wasalaam ku yaalaan buurtii uxud oh my god kaale iska arag iyadana naftarkeeda waxaa ku yaala qabuurihii oo asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalka lagu jabiyey oo ku dhinteen meeshii lagu duugay qabrigoodii ku yaalo oo silig lagu ooday allahuma baarik maasha allah waxaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ilmaha otistiga hooyooyinka haystaan waxaan idin leeyahay kuraastaas oo masaajidka lagu fariisto iyo dadka waayeelka wiiljeerka lagu jiido iyo quraanka kitaabada lagu akhrisanayo sadaqaysta intaas lagu idinka ajaraa idin socoto makana waa soo dhigtay aniga madiinana waa soo dhigtay maasha allah kitaabada waa gaday maasha allah kuraasta waa gaday maasha allah soo marka ilaahay subxaanahu watacaala hanoo gargaaro ilaahay awlaada hanala koriyo ilaahay intaa hadlayna hadal saciida allah ka keeno oo saalix ah ilaahay subxaanahu watacaala fahmiga allah u furo ilaahay subxaanahu watacaala cimri dheer oo cibaado suuban oon ku korsano ilaahay hana siiyo wallaahi jawiga aan gala meeshaan rabbiga raxmaanka unbaa ogaa ha ka tegin xataa way qabatay dagaalo adag aa socday waqtigaas aa meesha tagay xataa waa iloobay inuu dagaal jiray oo ciidahan bacda iska suraayeen aniga ama ku go'doontaa bis aan ka baqaay ma ahane cabsi kale meeshaan hadaa ku dhinta xataa u qabaa dhihi jiray marka it's so lovely habeenkii dhan waa la caweynaa banaankaas farxadaasaa la maraa maasha allah tabaaraka lagama sheekeyn karo waxaan ku leeyahay maalintii tagsigaaga iska qaadanaya uu baraa ka shaqeeyo cuntada meeshaa rabtaa kasoo cunee masaajidkaa rabtaa aadee maxaa la dhahay masaajidada qaar oo dhowyeen laakiin aniga
maalin jimco waaye meeshaa rabo taksiya isaga aadahay bas waxaa jiro la raaco oo kugu soo wareejinaya xataa kaas xataa waa raacay oo ma arkinoo meelo badan ku geynayo museuma xataa masaajidka ku dhex yaalo buurtii uxud uxud dagaalka badar ahay buurtii uxudaa imaanay waatana magacyadii asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii dagaalku u dhacay sidii loo jebiyey oo goos ah iyo English iyo carabiga ku qoran soo dadka aan carabiga akhrin aqoon English looga dhigay masaajidkaasaa ka dhisan isagana 2 rakacaan kusoo tukanay barqaa imaade ani haddaa duhur imaatid shish kabaabaa noqonaysaa waa bislaanaysaa soo buurtii uxud waa taasaa waxaan ku leeyahay ka sheekee meeshaan dhan wada buuro waaye meeshaan dhan wada buuro restauranti maxaa la dhahay dadka saas oo imaanayaan teendhooyin iyo waxaa ka dhisan meelo balbalama la dhihi jiray lagu nasto basaskaasaas u imaanayo allahu akbar wixii oo siiratu nabiy lagaaga sheekeyn jiray oo siiratu nabiy lagaaga sheekeyn jiray dhan xaadir naadir u noqonay adi dhanaa isweynay buurti ani waa hiraahiroya maamooyin dhulka wax fidsaday aan arkay wallaahi waa ka gadaysaa maalintooda ugu qurxiyo indhakuul iyo cilaan iyo tusbax iyo waxaasay gadayaan maasha allah marka qaybtan saana uga soo tagaya maasha allah ilaahay subxaana watacaala hanala garab galo next video oo qaybtii kale oo madiine ahayd ayaan go-aansaday inaan idiin soo sii daayo insha allah biidni illaahi kariim waa inuu video kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye